السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي ألوان السلام ميل baa joogtaan magacaygu waa Baasha Cabdiqaadir Muuse jalka daawanaysaana waa Baasha Figis insha Allah jalka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar hadaa hore joogteen asxaabtaada la wadaag waayahay saa la socotaan baa fiidiyoga ka horreeyay waxaan kusoo sharaxnay live good iyo wuxuu yahay iyo qaabka looga shaqaysto qofkii u baahan waxa weeye macluumaad dheeriya wuxuu soo daawan karaa fiidiyoga ka horreeyay aan soo dhignay janalkeena waayahay caawa maxaa rabnaa inaan ka hadalno insha Allah caawa waxaan fiirin doonaa qaabka la isaga diiwaangeliyo fiidiyowga hore laftigiisa waxa weeye waan ku sharxay qaybta dambe laakiinse haddana waxaan rabaa inaan si caadiya oo fasiixa waxa weeye inay tuso insha Allah hadduu la yiraahdo qaabka la isaga diiwaangeliyo so markaas ka diiwaangelinaysid waxaa u baahan tahay inaad haysatid waxa weeye linkiga qof linkigiisa oo kale waa iska diiwaangelin kardhaa qof saaxiibkaaga oo kale oo barnaamijkan ku jira linkigiisa waa iska diiwaangelin kardhaa balse haddaad rabtid inaad iska diiwaangelisid linkiga aan soo dhignay barteena youtube-ka oo aan description-ka soo dhignay fiidiyowgan laftigiisana insha Allah hadduu la yiraahdo waxaan soo dhigi doonaa description-ka so description-ka haddaad fiirisid halkaan baan soo dhignay ama fiidiyowgan haddaad daawanaysid insha Allah hadduu la yiraahdo waan soo dhigi doonaa so linkiga unbaa soo koobiyeysanaysaa linkiga unbaa koobi dhahaysaa kadibna waxa weeye meel bannaan baa imaanaysaa new tab and then halkaas waxaa ku samaynaysaa basti ku dhahaysaa intaa kadib wuxuu ku keenayaa meeshan wuxuu ku leeyahay reserve your position buu ku dhahayaa marka meeshan waxaa ku qoraysaa ugu horeysa first name-ka magacaaga kale ku qoraysaa oo soo qaad magacaaga first name-kaaga iyo last name-kaaga and then email buu ku leeyahay meeshaas waxa weeye email gasho ku dhahayaa so email unbaa iska gelinaysaa aad leedahay intaa kadib gmailka markaa gashatid kadib waxaa dhahaysaa reserve my position baa dhahaysaa now intaa kadib wuxuu ku leeyahay saacadahaas one day iyo inta hours baa haystaa aad lock in your position aad ku tiraahid so waxaa ku samaynaysaa lock in your position baa ku dhufanaysaa lock in your position markaa ku dhufatid kadib halkaan buu ku keenayaa marka halkaan markuu ku keeno waxa weeye waa meesha iska diiwaangelin lahayd weeye magacaagii emailkaagii wuu kuusii diyaariyey wuxuu ku leeyahay meesha waxaa ku qorataa numberkaaga so halkaan waxa weeye numberkaaga ku qoraysaa kadib waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay username marka waa inaad samaystaa meeshan waa inaad username ku samaystaa and then wuxuu ku leeyahay password samayso halkaana waxaa samaynaysaa password baa gashanaysaa marka waxaa la rabaa password aad garanaysid oo mar walba aad xifdinsan tahay inuu noqdo insha Allah username-ka waa username ka dhow marka lacagta bixisid aad kusoo gelaysid page-kaaga so username-ka meeshan iyo password-kan mar walba waxa weeye niyad ku haya ama xasuusnow waa username-ka iyo password-ka aad kusoo gelaysid marka lacagta bixisid so meeshan password-kaaga gasho kadib password-kaaga markaa gelisid meeshaas waxaa samaynaysaa meeshan laba option buu ku siinaya option one oo ah inaad $40 bixisid maadaama company-ga saa uga mid noqotid lagaaga baahan yahay $40 saad affiliate u samaysid oo affiliate sign up u samaysid oo affiliate compensation balanka ugu soo biidid waxa u baahan tahay linkigaaga inaad waxa weeye dad aad u dibid so linkiga adiga haddaad rabtid inaad samaysid waa inaad qaybta affiliate kusoo biidhaa qaybta affiliate-kana waxa weeye $40 hal mar baa lagaa wada qaadayaa and then 9.95 waa iska $10 oo waxa weeye bil walba aad bixinaysid so bil walba waxa lagaa rabaa $10 baa lagaa rabaa marka haddaad rabtid inaad sanadla u bixisid sanadla u bixinaysaa haddii kalena bille so aniga waxaan kula talin lahaa waxa weeye inaad midka bisha aad gadataan and then meesha wuxuu ku dhahayaa information-kaaga ku buuxi so meeshan waxaa samaynaysaa country-ga waddankaad joogtid baa meeshan gelinaysaa so waddankaad joogtid baad meesha waxa way ka dooranaysaa waddankaad joogtid markaad dooratid kadib halkan waxaa gelinaysaa magacaaga so magacaaga waxaa la rabaa halkan inaad waxa way si saxan u gelisid and then waxaa samaynaysaa address line-kaas waxa way lagaaga baahan yahay meel un baa iska gelinaysaa address xaafadaada oo kale haddaad muqdisho joogtid oo kale address muqdisho ah oo xaafadaha muqdisho kamid ah gelin kardhaa kadib meeshan waxa weeye city waxaa ku qoraysaa magaalada joogtid muqdisho haddaad joogtid muqdisho haddaad meelaha kale Soomaaliya joogtid Soomaaliya haddii wadamada kale aad joogtidna magaalada joogtid then meeshan waxaa samaynaysaa Kampala hadda ani Kampala aan geliyey Kampala marka waa inaan soo gaabiyaa 3 xaraf ku soo gaabiyaa so KMB baan dhahayaa and then zip ama postal code baan meeshaas waxa weeye gelinaya so zip and postal code-ka waxaa ka dhigan kadhaa Soomaaliya joogtid 252 anigu 256 baan ka dhiganayaa and then halkan wuxuu ku leeyahay waxaa haystaa laba choice ma waxaa ku bixinaysaa credit card baa ku bixinaysaa mise waxaa ku bixinaysaa cryptocurrency so
badanaa haddaad cryptocurrency waxa way haystid waxaan kugula talin lahaa inaad cryptocurrency ku bixisid haddii kalena inaad waxa weye aad ku bixisid credit card so labadaba waa samayn kadhaa credit cardna waa samayn kadhaa eh, sidoo kale cryptocurrency waa dooran kadhaa then credit cardka halkan waxaa lagaa rabaa magacaaga dadku marka waxay isku khaldaan badanaa magacaaga waxa lagaa raba waxa weeye waa magaca ma ahan kaarka aad haysatid waa magaca kaarka adiga kugu qoran so kaarka magaca kugu qoran oo kale inaad waxa weye magaca ku qorataa meeshaas and then halkan waxa weye wuxuu ku leeyahay big one meesha ku qorantahay ku dhufo halkan waxaa ka doorataa visa card miyaa ku bixinaysaa mise master card so visa card haddaa ku bixinaysa visa card dooro halkaana waxaa laga rabaa credit card numberka waa numberka wajahada hore ku yaala kaarkaaga halkaana ay ku qorantahay expiration date waxa weye kaarkaaga dhexdiisa waxaa ka fiirisaa xilligu dhacayo so xilligu dhacayo meesha waa inaad ka doorataa bishu dhacayo January oo kale kaba soo qaad iyo xilligu dhacayo 2023 so inta markaad dooratid halkan security code waxa weye kaarkaaga qaybta dambe numberka ku qoran saddex number oo ku qoran baa meesha gelinaysaa and then credit card address-kan meeshan waa inaad ku qordhaa credit card address-ka waddanka aad joogtid meesha waa inaad ka doorataa so waddankaaga waa inaad doorataa address-kana waa xaafadda degan tahay so xaafadda degan tahay iyo marka hore qaybtan soo buubuuxinayna xaafadda aad ku qoratay waa inay isla hadaan so address-kan xaafadda degan tahay ku qoro ayadana and then city-dana waxa weeye waa magaalada aad joogtid halkan wuxuu ku leeyahay state province character code halkan muqdisho joogtid oo kale waxaa dhihi kadhaa mgd oo kale waa dhihi kadhaa haddaad hargeysa joogtid hrg oo kale adiga waa iska soo gaabinaysaa meesha joogtid and then halkan waxa weye zip code-kana waxaa gelinaysaa haddaad soomaaliya joogtid 252 haddaa wadamada kale joogtidna waxa weeye markaas wixii adeegsatid baa gelinaysaa then waxaad dhahaysaa continue aniga hadda kaar addresskayga ma soo gelin laakiinse waa intaas wuxuu ku keenayaa pageka lacagta lagu bixiyo and then waxaad bixinaysaa complete messana baa dhahaysaa agrida waa inaad tigta saadhaa meeshaas labadaa kilig ay ku qoran tahay I understand iyo I agree labadaas waa inaad tig saadhaa complete messana kadib dheh qaabka cryptocurrency-gana insha Allah waa inaad tusaya hadduu laa yidhaahdo and then waxaad dhahaysaa complete messana almost bangiga uu ku geenaya lacagta bangiga waxa weeye meesha bangiga uu ku keenaya kadibna waxa weeye saasay lacagtu kaaga baxaysaa so sidoo kale waxa weeye cryptocurrency-na waa ku bixi kadhaan waxaa samayn kadhaan inaad doorataan inaad ku bixisaan cryptocurrency laftigeeda cryptocurrency aad buu fududiyaa inaad ku bixisid so qaab cryptocurrency loogu bixiyana ayada laftigeedu waa easy intii haddeer aa soo maraysaa stepskii haddeer phone numberkaaga dooranaysaa username-kaaga magac waa inaad magac waxa weeye samaysataa kadib wuxuu ku weydiinayaa password so kadib password inaad u samaysataa kadib markaad passwordka u samaysatid meeshan waxaad dooranaysaa shipping information ka dooro waddankaa joogtid baa ka dooranaysaa meeshan iyo magacaaga and then halkan waxa weeye waa iska optional kan address laymanka xaafaddaad degan tahay magaaladaad joogtid soo gaabi markaas and then halkaasna waxaad doorataa zip code-ka Soomaaliya haddaad joogto 252 kadib cryptocurrency marka waa isla midkii pay using cryptocurrency dheh and then waxaad dhahaysaa continue aad dhahaysaa kadib continue aad dhahaysaa kadib waxaad leedahay meesha I understand iyo I agree labadaas aad tigta saaraysaa complete messana baa dhahaysaa and then pay crypto ku dhufo halkaa kadib waxaad doorataa lacagta nooca u haysatay bitcoin ahaan baa u haysataa ku bixinaysaa mise USDT haddaa u bixinaysa USDT ku dhufo kadib linkigaasuu ku leeyahay copy so linkiga copy address waa marka dhahaysaa waa linkiga haddana la soco waa Tron TRC20 wey dadka inta badan crypto isticmaala si fiican bay u garanayaan Tron TRC20 gaas baa waxa weeye baad copyaysanaysaa linkigaas ah and then waxaad tegaysaa Binance-gaaga meesha USDT baad ku dhufanaysaa and then waxaad dhahaysaa withdraw baa ku dhufanaysaa kadib linkigaana meesha gelinaysaa and then network-gana Tron TRC20 baa gelinaysaa saasaad kusoo diraysaa lacagta marka complete lacagta markay noqoto oo xaggaaga complete way kasoo baxda lacagtu ay noqoto waa waxaa samaynaysaa meesha ay ku qoran tahay senti waa ku dhufanaysaa senti ma ku dhufatay almost waxa weeye lacagta ay transaction-kaaga saasaa ugu guulaysatay then meel cilaa baa imaanaysaa
waxa dhahaysaa login baa samaynaysaa www.good.com and then login baa samaynaysaa wajahada ama marka ku keenayaa wajahada marka ku keeno almost barnaamijkan waan kasoo hadla xalay mar labaadna waa rabaa inaan kugu celiyo insha Allah dib yiraahdo barnaamijkan waxaa samaynaysaa wajahada hore markaad timaadid meeshaan oo kale waa membershipka daa fiirisaan halkaan oo kale daa fiirisaan meeshaan halkaan oo kale daa fiirisaan waa wajahadii home baa ku qoran so homeka waxa weeye meeshaan home ay ku qoran tahay waxa weeye halkaan ay ku qoran tahay home wajahadii hore waxa weeye ma garanaysaa live goodka and then meeshaan waxa weeye membershipka wuxuu soo saaraya inaad lacag bixisay halkaan waa meesha ka dugaaminsan lahayd halkaan waa informationkaagii halkaana waa orderada aad waxa weeye mataqaanaa aad samaysay halkaana waa teamkaagu intuu yahay halkaana waxa weeye waa referralska dadka aad u keentay so halkaana waa main roller waa so almost halkaan waa leadershipkii halkaan waa websiteki marka inta ugu muhiimsan baan rabaa inaan insha Allah dula yiraahdo waxaan wax weyn maaha waa waxa fahmi ka dhaan waxaan rabaa inaan insha Allah meeshaan dad baa waxa rabtaa inaad u dirto linkigaaga oo ay iska diiwaangeliyaan marka waxa samaynaysaa meesha ay ku qoran tahay website ba ku dhufanaysaa login soo sameey buu leeyahay ka loginka ku dhufo dan almost passwordkaaga waa kuusii diyaarba kala halkaas passwordkaaga iyo loginkaaga gelinaysaa soo samaysanaysaa markii kadib waxaa samaynaysaa meeshaan ay ku qoran tahay my website-ka waa linkigaaga dadka u diraysay maadaama barnaamijkan saa u ogaatid waxa weeye xogtiisa iyo lacagaha dadka linkiga u diray sidoo kale si xog fiican u helaan barnaamijka ugu helaan meesha ay ku qoran tahay PayPal baa ku dhufanaysaa so PayPal-ka marka ku dhufatid lixda qaab lacagta looga samayn karo website-kan ku sheegayaa midda koobaad weekly fast starting commissions oo qofkii ay keentid aad ka helaysid $25 qof walba aad keentid $25 isbuucaasana lacagta la baxaysaa waana 10 level 10ka level koobaad waxa la unrecord baa la dhahaa oo qof hadaa keentid hal qof hadaa keentid qofka waxa ka helaysaa 50% macnaha hadii $50 uu isku diiwaan geliyo $25 baa ka helaysaa marka hadii level 2 aad u gudubtid level 2 na waxa weeye laba qof baa loogu gudbaa hadii laba qof aad keentid almost level 2 aad gudubtay qofka adigu keentid 50% baa ka helaysaa qofku sii karana 10% baa ka helaysaa kadib hadii aad silver gaadid waxa ku furmay ilaa level 4 marka gaadidna waxa weeye ilaa 4 qof baa waxa weeye baad wax ka helaysaa qofka aad u keento waxa ka helaysaa 50% ku sii keena waxa weeye 50% ka ku sii keena waxa weeye 5% saasay ku soconaysaa ilaa goldi waxa weeye goldigu 6 level weeye 6 level marka gaadid waxa kale yaado ilaa iyo qofka waxa weeye lixaad lacag baa ka helaysaa waxa u dambeeya waa 10 level oo ah diamond and then qaabka labaadna waxa weeye matrix baa la oo ah matrixku waxa weeye waxa lagu xisaabinayaa 2 times 15 matrix baa lagu xisaabinayaa halkan hadda fiirisid waa ilaa iyo level walba waxa weeye ilaa iyo 15 level weeye hadda level koobaad oo kale waa ilaa 12 level so waa in tusiyaa waxa weeye meesha laga fiiriyay qaabka looga gudbo sidoo kale qof walba waxa ka helaysaa meeshan ilaa 12ka level kan ugu horeeya 2.50% baa helaysaa oo ah waxa jira dadka adiga upline-kaaga oo kale wax spirit over la jira adiga waxa weeye dadka keentay adiga waxa weeye qofkii ku keenay oo kale waxa laga yaabaa inuu leeyahay upline iyo adu upline-ka waxa weeye aad leedahay ba hadii upline-ku si fiican u shaqeeyo waxa ka soo gaaraya waxa loo spirit over iyo dadka adu aad keentay qaabkii u shaqeeyo waxa soo dhan bay ku xiran tahay so hadii aadan $247 baa helaysaa adon hal qof daarti keenin sababta waxa weeye waxa laga yaabaa split over inaad ku heshid laakiin split over waxay qaadanaysaa waqti bay qaadanaysaa laakiin almost hadii aad 12 level ka buuxisid oo 12ka level markaa buuxisid dadna aad keentid oo dadkaas waxa weeye dad sii keenaan oo aad shaqaysid $2,000 baa qaadanaysaa laakiin hadii aad iska seexatid adiga waxa laga yaabaa xataa upline-kaagii oo almost lacag fiican ka soo gali lahayd oo 2.50% ka sameyn lahayd inuu upline-kaagu iska seexday so adiga split over ka soo gaari lahaa kama helaysid dhacdhic ka soo gaari lahaa dad baa lagu hoos keenaya adiga wax lagu leeyahay dadkaas maamul baa lagu leeyahay so qofka split over ka soo gaari lahaa maxaa heshaaba almost asiga ma shaqeynay so waxa laga yaabaa in lacagta ay ku seegto marka waxa fiican mar walba in adiga dad raastid aad dad keentid baa fiican marka kadib baa waxa weeye lacag fiican ka helaysaa so halkaana waxa weeye waa ilaa iyo 10 level weeye so matching bonus marba hadda inaan waxa weeye inuu ku dheereeyo waa ka soo hadlay kaliya videogan wuxuu ahaa qaabka la iska diiwaan geliyay kaliya inaan sheego so almost matching bonusna waxa weeye waa dadka
adigu aa keentay oo kale kaba soo qaad konton boqolkiiba ka helaysaa waa 5 generation wey waa ilaa 5 level weeye so qofkaa keentay waxaa ka helaysaa 50% haddii waxa weeye aad tahay only hal qof haddaa keentay laakiin haddii darajada silver gaadhid oo kale waxaa ka helaysaa qofkaa keentay konton baa ka helaysaa qofku sii keenana toban baa ka helaysaa kaa ku sii keenana 10% baa ka helaysaa so waa ilaa 5 generation weeye kaba soo qaado kale haddii 6,000 oo qof haddii 6,000 oo dollar ay sameynayaan dadkaa keentay qof haddii kaba soo qaad qof baad waxa weeye keentay qofkaa bishii wuxuu sameeyey 6,000 oo dollar so 6,000 oo dollar 50% marka loo qeybiyo waxa weeye 3,000 oo dollar so 10 qof kaliya haddaa heshid 10 waxaa ku dhufataa 3,000 almost waa 30,000 oo dollar so iminka dhan waxa weeye kamanigan lacagta laga heli karayo suu ma garanaysaa lacagtiisu u badan tahay halkan waxa weeye retail commissionska weeye retail commissionsku waxa weeye dadkaas retail commissionsku almost waxa weeye ilaa iyo 10 level weeye marka asaga waxa weeye haddii dad aa u dididoo kale linkaaga oo dadkii aad kaba soo qaadoo kale product la gadayey member base iyo retail base waxa la jira haddii ay productiga gataan oo waxa laga siinayaa percentage baa laga siinayaa so percentageka productiga member base iyo retail base baa lagu kala jarayaa kadibna inta ka soo baxda waxa qaadanaysaa almost 50% so ilaa asaga laftigiisu waxa weeye waa 10 level sidoo kale waxa jira influencer waxaan dhan waa ka soo hadalnay casharkii ka horeeyay waxa weeye si fiican u heli karaa so influencer bonuskana waxa weeye asna waa qofka aad keentay sales per month fees hadduu 2,500 gaaro adiga waxa lagu siinayaa 50% qofka wuxuu sameeyey 2,500 buu ka sameeyey sales per month fees gaaray adiga waxa laga siinayaa qofka wuxuu sameeyey 50% so 2,500 baa 50% laga siinayaa then additional kan kamaniga ku siinayo waa so 60% bas ku noqonaysaa so tanna waxa weeye waa xasaas oo kala ah and then waxa u dambeeya waa diamond pool oo ah 2% split between all qualified macnaha waxa weeye dadkii waxa weeye hadday sales per month siga kamaniga oo dhan haddii dadku waxa weeye dadka diamond pool ka gaaray way laakiin tan waxa lagu siinayaa 2% ba waxa laga siinayaa sales per month oo dhan kamaniga wuxuu bisha iibiyo dhan baa 2% waxa loo qaybinayaa dadka diamond rankers ka gaaray so waxaan filayaa inaad fahanteen halkan waxa laga socdaa meeshaan in si fiican inoo tuso meesha ay ku qoran tahay my team dadka adigu aa keentay baa ka ogaanaysaa halkan waxa weeye referralka halkan my referralka dadka adigu aa keentay sidoo kale oo linkiga iska diiwaangeliyey halkan waa my earnings waa intaad waxa weeye heshid anigu hadda almost waa ujeedaan weli waa ku cusbahay oo ilaa hadda adiga ilaa iyo 6 beri ku jira barnaamijkan ilaa adiga ilaa asbuuc baan ku jiraa so aniga ilaa hadda lacagtii u horeysay ma soo gaarin laakiin asbuucaan baan rajeynaya lacagtii ugu horeysay inay soo gaadho insha Allah payment proofkana waa in la soo wadaagaya halkan baan idin soo dhigayaa laakiin so far dadkii igu horeeyay almost company-gan lacag bay ka sameynayaan so membership waxa weeye saa uga mid noqoto kaliya waxa u baahan tahay $50 baa u baahan tahay bas $50 hadaa bixisid almost waxa tahay membership so kadib videogan waxaan kusoo xojin doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo qaabka lacagta loola baxo so qof walba waxaan filayaa inuu u baahan yahay qaabka withdrawga loo sameeyo insha Allah waan aniga withdrawga ugu horeeyay soo gaar insha Allah hadduu la yiraahdo baan inuu kula wadaagaya video soo sameynaya hadduu la yiraahdo so waxaan rajeynayaa inaad waxa weeye si fiican u fahanteen insha Allah dhalinyarada waxa weeye subscribe saara dhalinyarada la wadaaga insha Allah hadduu la haddaa videoga fahanteen insha Allah hadduu la yiraahdo asxaabtaada la wadaag channelkana waxa weeye insha Allah subscribe noo saar aad iyo aad baan islaamayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته